يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي عباس جانك عباس باي صاحب يواني سلام دمانتين مرك هore انت حقد افريتو بنا ugu dibin waxa jira gabar oo nagu weydiisay su'aal weerarkeed tenniska waliba su'aashaas aad muhiim u tahay ay maskaxdeeda ma sha Allah si fiican u shaqeynaa su'aashan si fiican ay weydiisay laakiin wax yar qosli raaxsiisay taasna waxay muujinaysaa inay shaqadan oo kale ka socodsiis ay tahay waxyaabo qaar isku socodsiinaya laakiin walaasha waxa ku sheegay waxaan Disney ma ahan sidoo kale Hindina ma ahan waxa daawanaysa waa weerarkeed tennisanina genius ku qaatay waxaana waa qisal lagu soo shaqeeyay hal qalad oo qisadan ku saabsan kuma jirto hal qalad oo hatta oo isdheysay hatta qisadan way qaldantay hatta oo kaliya kuma jirto su'aashaadana hadda kaaga jawaaba gabadha waxa lagu magacaabaa Sahra waxay leedahay si soon teetankii erin cunayay teetankaas muxuu qudarda erin u qaadi waayay oo asiga erin uu cunay markaas kadib maxaa dhacay saas waa su'aashaada soo maahan okay hadda kula wadaaga maalintii darbiga labaad ee Rosla burburinayay oo erin asxaabtiisa dhan maas ku dhinteen waxa aragnay Armin xataa maas uu ku dhimarabay laakiin markaas erina badbaadiyay erin markaas gacan oo ka go'san sidoo kale loo ka go'sanaa erin markaas markuu Armin in badbaadinay intuu ku sugnaa afka teetanka ku sugnaa soo maahan asigna Armin gacan oo taaganaya markaas teetanka afka uu qabtay erin gacantiisa way go'day laakiin daawada waxa waay markaas maxaa dhacay okay erin markaas maxaa dhacay erin wuxuu ku sugnaa markaas teetankaas calooshiisa ku sugnaa erin mar iman markaas waayo teetanka markuu afka isku qabtay erin wuu dhunjiyay ee maruugin daawada waxa ku sheegay teetanka noor marka qofka teetanka qudrada leh markuu cunayo waa inuu ruuga oo macna dheecaankiisna jirkiisa oo gashaa qofkaasna oo dhintaa sidaas ay dadka teetanka qudrada leh ay ku qaadan kartaa qudradooda laakiin si erin markaas maxaa dhacay gacantiisa bisa gooday inta kale waxay ku hartay teetanka calooshiisa erin markaas teetanka calooshiisa ku jira araagiisna wuxuu arkay asxaabtiisna oo geeriyoonayaan erin markaas uu adkeyso waay markaas si kiiso erin isku bedelay marka teetanka wuxuu isku bedelay teetankaas calooshiisa oo wallahi waa waxa ugu nacas badneed qofkan teetanka ku dhacay hada wajigiisa fiiris wuxuu ahaa qof oday ah waana qofkii ugu nasiib xumaa weerarkii teetanka kaliya leh doo ruugi lahaa maanta laba teetan isku qaadan lahaa teetanka asaasiga iyo teetanka kale laakiin teetankaas nasiib xumadiisa erin ku badbaaday maalintaas erin wuu isbedelay teetankaas calooshiisa isku bedelay markaas waa ogtay wixii dhacay dhagax soo qaaday erin darbiga roosna ku celiyay sidaas waa qisada abay waa ku muuqata su'aasha jawaabteedu waa haystaa fila laakiin daawad waxaan ku sheegaa serious kana u jeedid taxanaana u jeedid enemy uu fiican kaliya ma ahan anisa aamisana waa taxinii waa filinka ugu fiican abad aan arko runtii weerarkii teetanka wax gaar ma lahan runtii hada ku sheego sababtoo ah details ku jiro information ku jiro da aragto waa yaabay safoor markii la gaar daawad adaab yaabi doonta ku dheh aragna safoor markaa gaarna insha Allah haddana aad u dheeraana ku dheh xalaqadiina bilaawayna noo saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam xalaqadiina noo bilaawa xalqadii hore markaa aragnay in darbiga maari ay ku sugayeen teetiga waxshiga sidoo kale Rainer iyo Bertolt sababtay maas ugu sugayeen ay tahay in ay sugayaan koox saameynta in ogyihiin in meeshan imaan doonaan waxayna ogyihiin aadanaha in la xuray in qayb weyn ay ka tahay in la soo celiyo darbiga maariya ayagana sidaas ay maha ugu sugayaan kadibna Eren inay gacanta ku dhigaan sidoo kale ay aanay soo cishtaan qorshaasna waxa keenay ninka oo kiyaalaha gashan oo teetiga waxshiga ah waana qorshe aan caadi ahayn dadka kale waxa arkaynaa aadanaha oo aad ugu faa'iiday qudradii dhalada ahayd oo Eren isticmaalayay oo ku xijinayaan darbiga inay aad u adkeeyaan sidoo kale oo aad u caawinaysa in teetaniska si fudud ay ku dilaan ayagoo hal oo dhiimgil isticmaalan oo gaas ka qasaarin sidoo kale qof ruuxdiisa taan ka qasaarin waana fikrad oo hanji ay keentay ay ku dilayso teetaniska oo alwaaxas adeegsanayso kadibna surka ugu dhacayo fikradaas qalabadaas la adeegsanaya qofka keenaya kala naqal karaahay aan hanji ahayn hanji mar walba waxay ku saamta ku soo kordhisay in qalabada teetaniska lagu dilayo inay keento waana waxay aad ugu dheerayso hanji dadka kale waxa arkaynaa in kooxo saaminta ay ku guuleystay inay ku dhigaan halka cirbad oo teetis noo noqonayo laakiin si ay tahay oo kaliya in teetaniska dabaalada ay ka dhigayso taasna naftaada halis u noqonay sidaas daraadeed Eren wuxuu sheegay in cirbadna aad muhiim ugu tahay in ka qayb qaadato soo celinta darbiga maariya oo la adeegsanayo xilliga emergency-ga marka qof aadanaha muhiim u yahay oo naftiisa halis ku jirto laakiin marka hore waxa loo baahan yahay qof teetis qudrada leh sida Rainer iyo Bertolt marka labadooda gacanta lagu dhigo qof kamid ah markaasna qofkaas cirbada lagu daro oo teetika caadiga noqdo in la cunsiyo sidaas ay cirbada muhiim aad ugu tahay waxaasna waa ogtiin waa waxa ka baran Rodriguez oo Eren ku sameeyay rabay Levi wuxuu saan u murugsan yahay cirbadan qofka u hubiyay inuu abtigiisa ah keenay dhimashadiisana aad u murug badneed dadka kale waxa arkaynaa history markay boqorad noqotay in Eren ay wada sheekaysanayaan sababtoo ah markay ugu dambeysay wada kulmayaan Eren wuxuu u sheegay in farxadda ay ka dambeysay markay boqorad noqotay dadkaba historian aad u xishootay waxay leedahay wax waajib iga saaran markaas gudiis makasata ku umaad wajiga iyadoo bedelaysa oo kaala dumarka markay maseera masada ma noqdaan markaasna Eren alabtu wada inta qaaday waxay ku leedahay afduubka Eren lagu sameeyay wali ku daalan yahay historian waxay leedahay iga raal noqo Eren wuxuu leeyahay kaala aad cunuga dhashay ma ahay mar walba xasaa ila dhaqantaa war cunug ahaan kuma aragtay wixii saa u sameynaysa wali ma fahmin miya ragga qaar dumarka ma fahmaanba dadka kale waxa arkaynaa Levi iyo Eren wada sheekaysanayaan Levi aad wax ugu naxa Erwin oo maraba howlgalka soo celinta darbi maari inuu ka qayb galo Levi wuxuu ku leeyahay gacanta waxa ku weys marka soo celinaysa Rainer iyo Bertolt anigana goobtaas kuma sugnayn laakiin hadda kula sugnaanahay waxa ma dhacdeen laakiin si Erwin waa ogaay maskaxdaada iyo hogaamiyahaada in aad loogu baahan yahay sidaas daraadeed aadanaha xataa muhiim u tahay anigana maraba howlgalka ina ka qayb qaadatid oo naftaada ku weysid Erwin markaas aabihiisa soo xusto oriidiisa aad ugu qaalisnayd wuxuu leeyahay ku maasanta Levi walka igu walwaleysa waana ku qadirinaa taa laakiin waxa ku sheegay in howlgalka aad muhiim ugu yahay sababtoo ah Grisha Yeager sirta oo dhan intaas muddo aaraadinayo oo dhan iyo xaqiiqada adduunkan oo dhan muddo 100 sano aadanaha u baahnay inay ogaato in Grisha Yeager magaalada Shigashina qolkiisa sirta oo dhan ugu reebay taas
markaasna waa waxa u baahanahay inaa ogaado liifa wuxuu ku leeyahay waxaa laga yaabaa intaa ogaaninba in naftaada ogeysid sidoo kale waxaa laga yaabaa xataa howlgalka xataa inaan ku guuldareysano Erwin wuxuu leeyahay haa waa runta laakiin san nafteed markaa waayo waxaa joogta Hanji oo aad u khibrad badan sidoo kale haddii Hanji xataa ay geeriyooto xataa qof kale joogo aniga mar walba meesha ka baxo aan geeriyoodo mar walba qof kale ugu xigaayo oo taliya cusub noqonayo liifa wuxuu ku leeyahay sidaas ay tahay maskaxdaada iyo hogaanimadaada cid gaarta ma jirto adiga aadanaha aad muhiim u tahay Erwin wuxuu ku leeyahay howlgalka muhiim u ah aadanaha baahideeda marka laga soo tago ani qaas ahaan aad ugu baahanahay howlgalkan ka mid noqdo markaas liifa Erwin hadalkiisa ku xumaad wuxuu ku leeyahay may aad ma fadhiisanaysid koodhe gacanta ku hartay labada lugood marka ka jirta si toos u fadhiisanay eemahaada joog waa ku danay Erwin markaas toqoslo wuxuu ku leeyahay liifa aad marka xanaaqday wajigaada waa cabsi waay laakiin waxa ku sheega aniga howlgalka nafteeda ku way kara mooyee kama baaqan karo liifa wuxuu ku leeyahay lagu haaga weysay gacantaada xataa Erwin asoo indhiisa geesnimada ka muuqato wuxuu ku leeyahay ha liifa intuu ninka ka yaabo wuxuu ku leeyahay Erwin sababta aan marba ku aaminsanaa waa sababta sidaas daraadida ku leeyahay inaad joogtid waay laakiin runtii waxa ku sheega howlgalka in kaliya aan qaban karin oo maskaxda xataa aadanaha u baahan tahay oo maxay ugu baahanaaweysay war ninkan aadan ugu baahan yahay sababta maskaxda waa maskaxda aadanaha oo dhan in darmi maari la soo celiyo kaliya Erwin awoodiis lagu soo celi karo sidoo kale waxa loo baahan yahay maskaxda Erwin ninkan maskaxdiisa ma walga maarmaba iyo fikradiisa habeenka markii la gaaro waxa arkeen dhalinyaro cusub dhalinyaradaas oo ka tirsan kooxda saamaynta laakiin ayagu weligood meesha ma qabanin markii laga soo tago mishinkii ahaa darbiga Toros dhagax lagu celinayay darbiga Roos waxaan baradoonaa yar cusub magaciisa loo yaqaan Flock Forster ninkan waa qofka ugu filiisan kooxda saamaynta ku soo biiro sidaas ay tahay marba Jano foodeeya oo Jamalka kooxda saamaynta ku soo biira marba cabsi ka qabay Jan wuxuu ku leeyahay cabsida ay qabto waaba ka baxday heer waxa gaarta kooxda kabta liifa ay ku biirtaba laakiin haddii darbiga Maria la soo celi doona meeshaas Titans fara badan joogaan saa u sameey doontaa Jan wuxuu ku leeyahay yaa og ko ina meesha tagna aragna ma aho markaasna Flock wuxuu leeyahay wajigiisa cabsi dhanka ma muuqataba wuxuu leeyahay Jan sidoo hore markii waab isbedeshay maxaa dhacay Jan wuxuu leeyahay maxaa rabtaa ina ogaato marata arinta oo warninka maba ogaba dadka intaasoo hayso mission inay soo mareen sidaas ay tahay ka soo badbaadeen Flock wuxuu leeyahay maya wajigiina ka muuqata ina cabsooneen ko dheh waa nisi salaama wallahi go'aan fiican qaada targan afaarooda galin markaas gudaheeda inta lagu jiro Jan Erwin wuxuu ku leeyahay Erwin soo ma sheegin story iyo Rodriguez markay dhabarkaaga taabtay ina xasuus aragtay xasuusaas qofka aragtay aabaha ma aheena kiisa waxaa tiri qaabahaaga qof arkay qofkaasna koox saamintu ka tirsanaa iyo ahay qofkaas xasuusta ku aragtay Erwin wuxuu leeyahay ma aqaan dinkaas laakiin sharkiisa koox saamintu gashnaa madaxeygana maatan uu ku laabanaya Jan wuxuu ku leeyahay oo ma sidaas hada sidaas oo xasuusanay markii story ku laab madaxeeda ku dhufo sida uu sameeyay kiishatiisa oo kale Erwin wuxuu ku leeyahay oo warninkaas xasuusanay ninka macalinka xiriirada tabarka ah ninkaas sidoo iyo giljer ina soo xasuusto mar oo sii dhahay Erwin oo Erwin maskaxdiisu way shaqeysay daawada Erwin wuxuu arkay ninka xasuusta aabiisa ku arkay iyo macalinka xiriirada tabarka in labadood indhooda isla yihiin kadibna wuxuu dareemay in laba nin ay ahaynba oo halkaas nin oo yahay Erwin maskaxdiisa markay u sheegtay in labada nin ba hal nin ay yihiin intuu mar istaag wuxuu leeyahay waxa waa taliye hore koox saaminta magaciisuna waa taliye Kiishitis markaas dhamaantood waxay aadahay xiriiradiisa si uu ogaadaan wuxuu asiga og yahay asigana markay la kulmaan way fadhiisanayaan wada hadal wada qaadanayaan Kiishitis markii markuu Erwin arko wuxuu leeyahay ani waa ogaa maalin ay iimaanaysa Erwin marka waxna soo ogaato Erwin markaasna waa yaabaan wuxuu leeyahay Erwin waxba aan mi ogta ma taqaantaane waxa raba waxa ogta hadhow inaa ii sheegto Kiishitis wuxuu leeyahay ani waxas ma ogi laakiin waxa ogaa qiso yar oo kaliya inuu ku wada arabo sidana dhamaantiin in dhageystiin waa muhiim ee dhigiin iyo amaahiya muddo 20 sano ka hor darbiga Maria magaalada Shigashiina darbiga dibidiisa banaanka markii loo baxo ayaa waxa la kulmay inuu qof bil aadan banaankaas ku sugan yahay waana nin caadiya ninkaasna markaa weydiiyay maxamahan ugu suganta asiga ma aqaan asiga laakiin hadalka ugu jawaab u ahaa adiga maxamaha ka qabanaysiin Sooma ah darbiga gudihiisa inaa ku jirtiin hay dhihin makhluuqaadka sala dagaalamooya markaasna hadalkiisa la yaabay anigana darbiga gudihiisa soo galiyay su'aal badan markaa weydiinay wuxuu noo sheegay inuu waxba xasuusin laakiin sakariya oo xasuusta magaciisa oo yahay Grisha Yeager ninkaas waa Erwin aabiisa asiga wuxuu ii sheegay inuu waxba xasuusin laakiin oo xasuusta laba shay oo kaliya magaciisa iyo shaqadiisa hore laakiin waxa la yaabay ninkaas darbiga gudihiisa markaa tusay inuu aad u farxay wuxuu u muuqday nin farxadiisa adduunka oo dhan inuu idhiisa ku arkay oo kale markaasna wuxuu u yiri anuu xaraba in ay barto darbigan gudihiisa sida uu nooshihin maxamahan igu xaniba sidoo kale qasidiina maxay ahayd maxaa cuntiin sida uu nooshihin maxaa qabatiin wax walba darbigan gudihiisa ku saabsan waxa xaraba Kiishitis in ay bartid anigana waxa aqaan adiga waan igu faa'iideeyaa maasna waxay ahayd aniga aabahaaga saaxiib qaali meesha ku naqanay anigana waxa go'aan ku gaaray darbigan gudihiisa iyo caalamka siduu yahay oo dhan ina baro laakiin xaqiiqda wuxuu ahaa nin adduunka waxba aan ka aqoon Kiishitis wuxuu leeyahay anigu wax walba waa la wadaagay sababta adduunkan ugu noolaa sidoo kale darbigan gudihiisa wax ugu jiran wax uu xanibay asigana wuxuu yiraahdaa kooxda saaminta ka tirsantaa makhluuqaadka la dagaalamisay adigoo bin aadan ah wallahi waxaas waxa sameey kara dadka isbishalka ah oo la doorto oo kaliya geesiyaasha Kiishitis wuxuu leeyahay isbishalkay ka hadlay anigu muddo 100 sano darbigan gudihiisa ku jirnaa sidoo kale waan la ilaa hadda xataa sabab u bixi karno adigna waxa loo joogina ka hadlay markaas Grisha wuxuu leeyahay maya inta karaankiina waa sameeyeen waana dadaashin waana fiicantiin markaas gudihiisna meesha waxa maanaysa Carla Erwin hooyadiisa Kiishitis wuxuu leeyahay hooyadii aabahaaga ma isku barteen waa mahaas laakiin waxa ku sheegay in hooyadaada xaqiiqi qof qaali ah ka ahayd oo sidoo kale aad isku aqaanay laakiin hooyada aabaha ay doorato waxayna ka heshay qaab fikradiisa iyo hadalkiisa sidoo yahay laakiin wuxuu ahaa nin aan caadi ahayn wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ugu dhaho in koox saameynta waxay sameynayaan wax qaali ah tahay oo sameey karaan oo kaliya dadka isbishalka ah oo adduunka laga doorto oo kaliya laakiin mar walba koox saameynta dibadda ay u baxaan mar walba Titans way ka guuleystaan dad badan ka soo baabao anigana markaas
markaas go'aan waxa ku gaaray inaan noqdo taliyaha kooxda saaminta aan tusnacsita madaxda isku tilmaamaysa qiimaha ay leedahay kooxda saaminta laakiinse markaan noqdo taliyaha kooxda saaminta waxaa noqdo ani xataa taliyaasha hore inaan waxba ka duunayn oona koox walba liisoo raacsiiyey ay geeriyoonayaan mission walba aana qabtana ku guuldareysanayo laakiinse waxaa arka aabbaha dhakhtarnimadiisa xirfadiisa dadka inay aad ugu faa'iideen hooyadeedana ayadoo xanuunsanoo daaweeyey ayadana aad ugu heshay maalmo kadibna way isguursadeen anigana waxaa go'aan ku gaar talinimadeeda inay erwin ku wareejiyo sababtoo dhan walba oo iga fiican yahay asiga xataa aniga waa ka mid noqoay dadkaas isbishalka ah oo nolosha wax kusoo kordhinaya laakiinse aniga ayagoo kale ma ahayn shaqadana sidaas iskaga casilay laakiinse maalintii derbiga maari la burburinayo waxaa arkay aabbahaaga mar kale inaan la kulmay asigoo weydiinaya adiga iyo Carla maha ku sugantihiin laakiinse adiga markuu kula kulmo waxa uu sheegtay in hooyadaada geeriyooto teetan cunay anigana markaas aad u nacwaano suureysan waay in Carla geeriyootay laakiinse asiga markaas wuxuu kugu dhahay in hooyadaada hadii u geeriyood arabto waa inaad soo raacdaa erin markaasna gacanta soo ku hayo durku kulgal rab aniga waxaa ku dhahay Grisha adiga Carla uu guri karto sababtoo dadka specialka kamid tahay maxaa cunuga uu dhibe Grisha markaas wuxuu ku leeyahay cunuga adiga kala ma ahan cunugayga ana dhalay anaan aqaan waxa ku sameeyay arinta family qoyska ka dhaxbax hay qasbin kiishitis ina saaxiibtinimadeeda iloobo markuu hadalkaasi dhahay aniga waa la yaabo markaas waa iska dhaafay markaas kadib waxa arkay meel dheer nuurka soo baxay anan maas markaa tagay waxa arkay adiga kaliya in maas ku sugan tahay anigana markaas maas waa ka soo qaaday furana wada gacanta ku xirna furaasna qorta ku galiyay markaas soo tagay khalaas way waxa ogaamooyay wax kale aan ogahay ma jiro markaasna haanji tii xalaaqday waxay leedahay talikiishitis maya taliyo hore kooxda saaminta waxay leedahay kooxda saaminta waxa uu tagtay oo kaliya inaan ahayn dadka specialka ah nolosha guul aan ka gaareen waxaas caruurnimada iga hor imaanay ma meeqa dhalinyarada jirto aadanaha oo naftooda u hureen oo dhulka hadda ka hoos maray liifaan markaas wuxuu leeyahay hanji ixtiraam muuji irina markaas tasabud wuxuu leeyahay hanji talikiishitis waruntiis aniga dadka specialka ah kamid mid ihi laakiinse waxay dhala aaba special ah arintana waa sidaas kiishitisna wuxuu leeyahay maya waxa jira arin kale hooyadaada ay sheegtay hooyadaada waxay ugu tiri maxaa dib ay leedahay hadaan dadka specialka aan la kamid ahayn hadda cunugayga fiiriso oo qurxoon yahay aduunkaana ku dhashay xornimona waa ku heystaa aniga wiilkayga maalinta dhasho special ahaaba hadaba wiilkayga wuxuu rabo oo sameey karo oo riyadiisu rumay karo inta aduunkan uu ku nool yahay special waay taasna waxa sameey karo oo kaliya dadka nolosha xornimo ku heysto والله Carla maxay hooyo tahay runtii erina hooyadiis hadalada ku amaatay markuu maqlo aad uu farxaa aad uu qanca sidoo kale waxa u muuqanaysa hadafkiisa iridiisa wuxuu sameey lahaay markaasna erin wuxuu go'aan ku gaaraa wax walba uu sameey naftiisa taa ku waayay inuu darbiga Maariya soo celiyo oo aadana xuray maadaama uu yahay yarkii specialka ahaa mahaasna waxaan ugu dhamaatay xalqadeena aad u maceed qisadii erin iyo hooyadiisa daawada xalqadan hadda ka heshay anaga ilooban laagtay subscribe-ka sidoo kale in imtixaan examination aan ku jirno university-ga markana soo duceeyay saaxiibayaal adigana wax walba Ilaahay aan ii fududeeyo waana macsantii magacii Cabbaas janaka Cabbaas Simbaay nabadgelyo saaxiibayaal